السلام عليكم أصحاب تقالي وايد السلام مربط جوجتان waxaa idin leenahay nabad farxad iyo caafimaad ku arko soo dhawaada channelkeena Ridwaan cunto macaan maanta waxaa inoo wada casho ama qada aad iyo aad u macaan daawasho wacan sidaan u sameeyay بسم الله هاد waxaa bilaabanayna inaan sameysano meeshaas waxaa ku haystaa hilibka waxaan kusoo kariyay pressure cooker-ka kusoo kariyay waa hilib geel waaye oo steak waxaa kaloo ku haystaa meesha yaanyo basal barbarooni sanjabiisha qoyan toon kulli intaas qudaarta waa isku shiidayaa maasha Allah waa soo shiiday marka soo shiidsaan ay noqotay haddana waxaan sameynayaa waxaa bilaabayaa inaan kariyo dabka waxaa ii saaran pan-ka waxaan ku shubayaa saliid xoogaa yar oo saliid ayaan ku shubayaa ilaa qiyaas wax ii dalacdo waxaan kaloo ku shubayaa markaa sooska aan soo shiiday ama qudaartii toontii iyo wixii basashii iyo yaanyada isku shiiday kabacdi waa karinaa alaabta soo shiiday iyo saliidda xoogaa 1 iyo 2 markay isku shiilmaan waxaan sameynayaa waxaa ku darayaa digirta cagaaran ayaan soo dhaqo oo nadiif ayaan ku darayaa markaa ku darana xoogaa waa daboolayaa haddana ilaa isku soo shiilmaan isku soo shiilan kabacdi haddana waxaan sameynayaa carrot si dhuudhuuban aan usoo jarjaray iyo baradho si buurbuuran aan usoo jarjaray aan ku darayaa xoogaa waa isku shiilayaa haddana markaa isku shiilo intaas waxaa kaloo sameynayaa waxaan ku darayaa caano yogurt ama yogurt-ka fadhiyo caanaha fadhiyo oo yogurt-ka la dhaho plain-ka sokorta iyo kalar la'aanta ayaan ku darayaa ilaa nus koob si fiican ayaan ugu walaaqayaa kabacdina waa kusii karinayaa waa daboolayaa marka intaas si fiican iskugu kariyo waxaan ku darayaa wax yar cusbo markaa ku daro wax yar cusbo hadda maraqa wax yar ayaa u dhiman almost wuu bislaaday waxaan ku darayaa hilibkii aan ku darayaa sababtoo ah hilibka karis badan uma baahno wuu bisil yahay aad ayuu u jilicsan yahay hilibka hadda ku darayaa kabacdina si fiican ayaan iskula shiilayaa cabaar ayaan ku huurinayaa hilibka maasha Allah suugadeena saas ayay gabagabo ku tahay markaa aan arkay inay baradhadana bislaatay waxaa ku darayaa basbaas oo aan la jarjarin oo kuleel aan ka dhigaynin just caraf un siinayo iyo barbarooni aan si dhuudhuuban usoo jarjaray intaas ayaan ku darayaa cabaar ayaan kula huurinayaa kabacdina insha Allah waxaa waaye diyaar suugadeena haddana waxaa bilaabanaynaa inaan qasano muufada waxaa ku haystaa meeshaas waxaa ku haystaa 1 qaado oo yeast ama qamiirise 2 qaado sokor 1 xabo ukun soorta shiidan bur waxaa sameynayaa sokorta iyo yeast-ga ayaan biyo qandac ku shubayaa xoogaa ayaan ku garaacayaa kabacdina waxaan ku darayaa ukunta waa kula garaacayaa kabacdina waxaan ku darayaa 2 koob oo soorta shiidan iyo 1 koob oo bur intaas ayaan isku qasayaa si fiican iskugu qasayaa kabacdina cabaar yar ayaan dhigayaa ilaa ay kasoo yara qamiirto qamiir kabacdina markay qamiirto kabacdina waxaa sameynayaa dubitaanka ayaan ku bilaabi doonaa soorta waa soorta shiidan oo budada 2 koob waaye iyo burkana 1 koob aa isticmaalayaa biyaha isticmaalayana biyo qandac waaye
muufadan muufa maasha allah aad u fiican waaye. Waxaa waaye saliid la-aan la dubaayo, si yaryaroo haddana macaana loo dubayaa. Fudud haddana qaado unbaa isticmaaleysaa. Waa daboolaya, waa dhigayaa. Haddana maasha allah way soo faxday. Waxaa bilaabayaa inaan dubo. Dabka waxaa la rabaa inuu ahaado qiyaas. Markaa ku shubtid ee hoos ka bislaato waa gedinaysaa si haddana kor uga bislaato. Labada dhinac markay ka gaduudatana waa ka dhigaysaa. Maasha allah muufadaada saas ayay diyaar ku tahay. maasha allah muufadani waa taas, saas ayay diyaar u tahay. Maasha allah muufo qurux badan, macaan, jilicsan, yaryar yaa. Muufada hadda saas ayay noogu soo dhamaatay. Waxaan sameynayaa, waxaan soo jarjaray qaro iyo cananaas. Waxaan rabaa inaan ka sameysto cabitaan. maasha allah cashadeena ama qadadeena saas ayay diyaar ku tahay. Waa muufadii, cabitaankii, maraqii. maasha allah casho dhammaystiran, qado dhammaystiran. Videoga hadaa ka heshay like, hadaa subscribe ii saarin subscribe. Waxaan idin leeyahay intaan ku kulmi doono muuqaal kaleeto cusub insha allah biidni illaahi kariim. Fii amaanillah.